madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib u noqosho ma jirto. Waa inaynu soo afjarnaa halista kooxda Al-Shabaab. Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa koox argagixiso caalami ah oo arxan daran, akhlaaq daran, oo aanan aqbali karin inay dalkeena iyo dadkeena ku dhex noolaadaan kana dhex shaqeystaan afkaarahooda guracan. Waxaa codkaasi beejkiisa soo dhigay Facebook madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo ay la xiriirto in uu doonayo madaxweynaha in laga safeeyo xilligan gudaha Soomaaliya. Al-Shabaab oo ay isku kaashanayeen militariga Soomaaliya iyo dadka deegaanka ee la magacbaxay macawisleyda, kuwaasi oo ku guuleystay la dagaalanka Al-Shabaab, sidoo kalena sheegeen in ay hadda gacan bir ah ku hayaan kooxaha argagixisada waddanka Soomaaliyana ay rajo leedahay in laga guuleysto kooxahani ragaadiyay qaranimada iyo nabadgelyada Geeska Afrika.